miyaad garanaysaa ruuxa dunida ugu nasiibka badan waa wiilka hantiyey boqorada jacaylka kama dhigna inay tahay boqorada dunida oo idil balse waxay boqorad u tahay boqorka ay dunida ka xulatay taasi macnaheedu ma ahan in gabar waliba si fudud wax u jeclaato isla markaana ay qalbigeeda ku aaminto nacas waliba aan garanaynin qiimaha jacaylka haddii ay taasi dhacdo waa markii ugu horeeyey ay hanatay ama ay milkisay riyadii ay weligeeda ku riyoon jirtay oo ah mustaqbal qurux badan waa marka kaliya ay dareentay farxadii ugu wacnayd nolosheeda markaasaad waxaad maqlaysaa wiilkii ay isjeclaayeen ayaa qayaanay taasoo sabab u noqota maalintii ugu dambaysay gabadhaas nolosheeda hamigeeda iyo rajadeeda intaba ay ku lumiso halkaasi oo ay dib damba u aamini weydo wiil waliba oo ku yidhaahdo waan ku jeclahay balse waxaan ku leeyahay walaashayda qiimaha badneeday weligaa ha ka fikirin ruux ku dhaawacay iska daha iska tegee khayr ayay kuu tahay bixitaankiisa waayo nacaskaas maahan mid adiga kuu qalmaa waayo adigu waxaad tahay boqorada dunida ilintaadina waxay dhibaysaa boqorkaaga